shirweynaha toddobaad ee xeer ilaaliyayaasha Soomaaliyeed ee sanadkan oo sanadkan halkudhigiisu yahay la dagaalanka iyo maalgelinta ilaha dhaqaalaha argagixisada waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Hotel Jazeera wuxuuna socday muddo 2 maalmood ah oo kala ah 5 iyo 6 bisha labaad ee 2025 xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo xafiisyada xeer ilaalinta heer dawlad goboleed waxa ay si wada jir ah uga mahad celinayaan marti sharafta kala duwan ee ka kala socday hay'adaha kala duwan ee dawladda ee ka soo qayb galay shirka waxaana ka soo qayb galay madaxda kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka wasiirka wasaaradda ganacsiga wasiiru dawlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta hidaha iyo dhaqanka la taliyaha madaxweynaha ee amniga qaranka gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir taliyaha qaybta gobolka Banaadir taliyaha hoggaanka baarista ee CID gudoomiyaha macadka tababarka garsoorka hay'adda warbixinada maaliyadda ee FRC iyo hay'adaha bulshada rayidka shirkan waxaa si rasmi ah u furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxaana shirkan looga dooday cilmi baarisyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin kow sooyaalka argagixisada Soomaaliya ilaha dhaqaalaha argagixisada kaalinta warbaahinta ee la dagaalanka argagixisada la dagaalanka iyo maalgelinta argagixisada la dagaalanka iyo xakameynta hubka sharci darrada ah qodobada warmurtiyeed ee ka soo baxay shirweynaha toddobaad ee xeer ilaaliyayaasha Soomaaliyeed kow shirku waxa uu mahad celinayaa qabanqaabiyayaasha shirka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay qabsoomidda shirkan labo shirku waxa uu taageerayaa dadaalka xukuumadda iyo baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee ahaa la dagaalanka argagixisada gaar ahaan la dagaalanka maalgelinta argagixisada waxa uu boorinayaa in la sii xoojiyo howlahaas shirku waxa uu bogaadinayaa howlgallada nafhuridda leh ee ay bixinayaan ciidamada qaranka Soomaaliyeed si dalka looga xoreeyo argagixisada shirku waxa uu bogaadinayaa isla markaana boorinayaa in kor loo qaado wacyigelinta bulshada ee la xiriirta saameynta taban ee maalgelinta argagixisada iyo ka ganacsiga hubka sharci darrada ah shirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed ay dhibanayaal u yihiin argagixisada wuxuuna soo jeedinayaa in dhammaan hay'adaha dawladda gaar ahaan hay'adaha amniga sharci fulinta booliska iyo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qarankuba ay qaataan tallaabooyinka ka dhanka arrinkaas waxaa kale oo uu shirku bogaadinayaa wada shaqaynta joogtada ah iyo xiriirka adag ee ka dhaxeeya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo hay'adaha baarista dalka waxa uu boorinayaa in la joogteeyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada shirku waxa uu adkaynayaa baahida loo qabo in la tayeeyo hay'adaha baarista oo halbowlo u ah la dagaalanka dembiyadaas shirku waxa uu hoosta ka xariiqayaa muhiimadda ay leedahay in la helo xabsiyo u gaar ah dembiilayaasha lagu xukumay dembiyada argagixisada shirku waxa uu ka walaacsan yahay miisaaniyad yarida hay'adaha garsoorka dalka gaar ahaan xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo xafiisyada heer dawlad goboleed waxa uuna ku talinayaa
in hay-adaha fulinta ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay xil iska saaraan wax ka qabashada arrinkaas. gunaanad shirku waxa uu aqoonsaday dowrka xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo xafiisyada heer dowlad goboleed ay u leeyihiin qaran dhiska Soomaaliya iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la helo xeer ilaaliyayaal ku qalabaysan aqoon daacadnimo karti iyo hufnaan. dhammaad wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah.